biyo-xireenka Balcad waa kaydka biyaha ee ugu weyn Soomaaliya iyadoo ay abaaraha kaga soo doogeen beeralayda iyo xoolo dhaqatada labada Shabeelle waxa uu ka mid yahay hantida qaranka ee boobka ka badbaaday burburkii 1991 heshiis iskaashi saaxiibtinimo ay wada gaareen Jamhuuriyaddii Dimuqraadiga ahayd ee dadka Kuuriya iyo Jamhuuriyaddii Dimuqraadiga ahayd ee Soomaaliya ayaa lagu hirgeliyay 1980 waxa uu gacan ka geystaa xakamaynta fatahaadaha iyo waraabka beeraha isagoo marka biyaha webigu ay yaraadaan qulqul hoose ugu qaybiya gobolada Shabeellooyinka waxa uu faa'iideysanaa sidii aan ilaa xad annagana wax ku heli lahayn degmooyinka kale asaageena banagu garabahay webiga wax ka sugayeen ayaga wax ku heli lahayn hay webiga marna waa go'an marna wuu soo buuxsamaa markuu go'o oo ku qasbanaa inaan webiga u sameeyno system maxay kaligeen ku noolin oo degmooyinka naga xageeyo oo anaga diriskana la iyo ay kuwa diriska la si ah sida afgooyo kale anaga afgooyo dirisna la ka degmo ahaan marka la goor Shabeellada hoose amba maamulka Koonfur Galbeed waxay ku xiran yihiin webigan biyo-xireenkan ay ku xiran yihiin iyagana waxa ku sii xiran degmooyin ay kamid tahay Jannaale iyo degmooyin lamid ilaa ay Jannaale anaga waa biyo gaari kara marka waa ugu faa'iideynaa bulshada Balcad iyo bulshooyinka kale ee walaalaha maadaama Soomaaliya wadaya halkani waa biyo-xireenka degmada Balcad kaasi oo bulshada deegaanka ka caawiya kaydinta biyaha iyo yareynta fatahaadaha waxaana dhismihiisa iska kaashaday dawladdii militariga ahayd ee Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda Kuuriya kuwaasi oo isku tashi ku dhisay waxaana ku liibaanay bulshada Soomaaliyeed waxaanu shaqaynayay tan iyo xilligaasi iyadoo ay beeralayda iyo xoolalaydu si weyn ugu tirsan yihiin gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale waxa uu biyaha gaarsiiyaa isla markaana qataraha ka yareeya gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmooyinka Afgooye ilaa iyo Jannaale dadka ku nool deegaanada ku teedsan webiga Shabeelle badankoodu waa qodoto beeralay ah oo laba xilli wax tabcada biyo-xireenka ayaana si weyn u saaciday beeralayda degmada Balcad والله magaaladan waxay ku tiirsan tahay beeraha ay ku tiirsan tahay alxamdulillah wax soo saarkeeda beeraha ugu muhiimsan ay ku tiirsan tahay badana wabiga marka anaga aan metalka soo qaad matoorka oo kale markaan soo kacino waxaan noo soo qaada faro wabiga markuu buuxane waxaan ku cabnaa garaafataha ku cabnaa garaafatadaas waa ku dhibtoonaa marna biyo-xireenka waa la xiraa marna ma la xiro markii oo biyo-xireenka la xirin matoorkan kacsanaa faraa jiro oo alxamdulillah biyaha soo qaado faraha waaba kuwan yani adiga ay ku keenan oo hadda yani fartan idinka u jeedin waxay ka soo baxdaa webiga ka soo baxdaa sidaan alxamdulillah matoorka uu yani adiga aan u warabna alxamdulillah garaafatada maxaa waa garaafatada waxa waaye webiga markuu xiran yahay webiga oo buuxo far aan soo jeexanay waaye degmadeena waxay yani degmadeena waxay hodan ku tahay biyo-xireenkaas marka la xiro aan ka faa'iideysanaa garaafatada taas waa inkastoo muddo dheer Soomaalidu beeranaysay cambaha liinta isbaandhayska iyo dalagyada kale haddana beeralayda Balcad ayaa tijaabinaya geedo aan horey loo beeri jirin kuwaasoo dibadda laga soo dhoofin jiray waxa kaloon ku sharaxa oo nagu soo kordhay inta aan ku tusayda yani waxay ka mid tahay geedaha dabiiciga oo wadanka ka baxo baalkan oo liiraha Afrikada dibaddu noogu yimid wadanka waa lagu cunaa laakiin banaanka noogu yimaado mirihiisa waxaan rabnaa tijaabo noogu jira si aan oga kaaftoono in dibadda laga keeno waxaan rabnaa hadda inaan tijaabin ogaano kadib aan ballaarino abuurkiisa iyo wixiisoo dhan ballaarino oo ka kaaftoono ka keenista dibadda beeraleydan keenna waxaan diyaar in la wada arko oo qof walba oo abuurka qaato oo beertiisa ku dhigto si loo kaaftoomo ka keenista dibadda hadii aan leeyahay suuqa ugu weyn ee loo iibgeeyo khudaarta iyo miraha kale ee ka soo baxa beeraha Balcad ayaa ah magaalada Muqdisho waxayna beeralaydu dib weyn ku qabaan burburka ku yimi laamiga isku xira Balcad iyo Muqdisho walow hadda dib loo dhisayo qiimaheeda Balcad qiimaheeda way sareysaa xamar qiimihiisa oo yar Balcad oo qiimaheeda oo muxuu ahaay kor u jiro sababtoo ah Balcad yahay way ku yartahay xamar goolada labada Shabeelle ka soo gashaa xamartana giyaay waxa la gadaa 80 kun 70 kun Balcadna waa aragteen 110 kun 100 kun la gadaa
laakiin balcad oo magaalo oo ka baxdo webi leh sababta xamar oo 4 kiiloomitir uga qaadaysa maxaa gobolada labada shabeelle qudaarta ka baxdo oo dhan waxa la geeyaa magaalada Muqdisho meel kale loo dhoofiyo ma laha marka qudaarta waxa qaboojiye taas awdeed oo xamar qaboojiye balcadna ay qaaltahay maaskab sare 100 oo jooga bacan salaata ay joogtaa 100 sababtoo ah webiga markuu gura biyo cusbal hoo keenay cusbada biyo lahaay hadii lagu waraabiyo beeraha oo qudaarta way gubteen qudaartii oo dhan gubatay